golaha la magac baxay runta iyo cadaaladda ayaa magaalada Garowe waxa ay qado sharaf ugu sameeyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Puntland. faafaynta warkaasi waxa mar kale magaalada Garowe inoogu diyaariyay wariyahana Farax Maxamed Khaliif Yamani. xafladan qada sharafta ah ay golaha runta iyo cadaaladda u sameeyeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Puntland waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda Soomaaliya, qaar ka mid ah labadii gole ee hore ee dawladda Soomaaliya iyo tan Puntland, iyo qaar ka mid ah ururada bulshada. Siciid Cabdi Faarax iyo Cabdi Samad Cali Xaashi ayaa ka hadlay sida ay golaha runta iyo cadaaladdu u aragto xaaladda ay haatan ku jirto Puntland. dawladda dhaxwaaq kurtay maadaama dadka Puntland Soomaalida ku timaado ama ay noognahay in ay dad gobonimo u dirira dadkii dhaliyay xornimada Soomaaliya taariikhdaas lagu tuurayay taasoo keentay markay isu taagaan in ay u hadlaan in la soo celiyo dawladdii Soomaaliya. goluhu sidiisaba waa gol siyaasi ah waana dimuqraadiyad وقامسية ديمقراطية أفكارها مبادئ كوساليسن وهذا dadkeena la tasano ma ahna inaan si qabsanano wixii 20 sano kadib waxaan wali walwal weyn ka qabnaa halka ay maanta dawladnimadeena joogto iyo dhabaha qaloocan ee ay ku socoto oo aan sina uga turjumayn himiladii aynu maamulkan u dhisnay 20 sano ka hor. golaha runta iyo cadaaladdu wuxuu dhammaantiin idinku baaqayaa inaad nala qaadataan aragtida golaha si aynu uga wada shaqeyno hadafkeena guud ee ah wax ka qabashada xaaladaha aynu ku sugannahay, qaybna aynu uga noqono abaabulka iyo wacyigelinta waxgaradka ummadda si aan uga badbaadino khataraha inagu hareeraysan oo ay keentay dawlad xumada iyo garaadka dawladnimo ee shacabkeena. Suldaan Zubeer Xaaji Maxamuud oo ku hadlayay afka isimada iyo Maxamuud Cabdullaahi Xasan oo ku hadlayay afka nabadoonnada iyo Abwaan Shube ayaa xafladda ka hadlay. dibiga doolood dhagihiisu wax fiican bay maqlaan laakiin indhihiisu ma arkaan. kelimadahaas waa inagu soo noqnoqdaan markasta iyadoo baahi aad loogu qabo. marar badan ay dhacdo kuwii hore inta la ilaawo kuwa haddeer markaas taagan loo weeraxo. horta waxaan leeyahay lala shaqeeyo guddiga yiri waxaan ka shaqeynaynaa run iyo cadaalad dhammaan aynu ka wada shaqeyno. haddaynan dhammaan ka wada shaqeyn ma shaqeyn karaan, waa daalayaan, waa fariisanayaan. xaqiiqdu saa weyn waxa dumiyay qarankeennii oo doorshay quruxdiisii oo dawga ka habowshay dadka waxa culeysiiyay dilka iyo dhacana keenay iyo gulufka duulaanka iyo daadufka iyo caydha iyo dalowga maariyaadka waxaan weli dib loo eegin dadna aanu isweydiinin dawladii ku dhaqankeeda. Cismaan Maxamed Faarax gudoomiyaha kumeel gaarka ah golaha runta iyo cadaaladda ayaa ka hadlay ujeedka loo asaasay golaha iyo waliba cidda asaastay. golahan iga dambeeyo magaciisa runta iyo cadaaladdu markii dad aqoon-yahana ama waxgaradii ay isu tageen baa waxay ogaadeen, waxay yiraahdeen systemkan maanta Puntland ku jirto kuma socon karno. akhyaaray waxaad ogtihiin iyamahan waxaa socda doorashadii ololihii hore horeysa nin waliba isaga shakhsiyadiisa ka hadla oo yiraahdo shakhsigaygan wuxuu rabaa boor buu dhegsadaa, kharash buu bixiyaa, wuxuu yiraahdaa shakhsiyan baan wuxuu rabaa. golaha iyagu waa ka duwan yahay, ceeb baanu aragnaa. Farax Maxamed Khaliif Farax Yamani, wararka TV-ga raadiyaha SBC magaalada Garowe.